wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo ee raadiyaha Simba. Khudbad jeedinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa goordhow ku soo ilaatay magaalo xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Laba ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen inay ka tanaasuleen u tartamida xilka madaxweynaha Jubbaland. kooxoobeysan ayaa goordhow asgari ka tirsan ciidamada dawladda waxay ku dileen isgoyska Sanca ee magaalada tan Muqdisho. madaxweynaha Jubbaland ayaa la sheegay inuu bixiyay amar lagu xiray dhammaan wadooyinka soo gala kana baxa garoonka caalamiga ah ee magaalada Kismaayo. golaha isbedel doonka ah ee Jubbaland ayaa waxay ku dhawaaqeen inay biri doonaan dhinacooda iyana madaxweyne cusub. al-shabaab ayaa war waxay ka soo saareen dagaal ay ku qaadeen saldhig ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin duleedka magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. maamulka gobolka Mudug ayaa shaaca ka qaaday cidda bixinaysa lacagta ku baxaysa dhismaha dekadda qadiimiga ah ee Hobyo ee gobolka Mudug. akhbaaraadka dibadda warbaahinta Simba duhurnimadkan idiin haysana waxaa ka mid ah askar u dhalatay dalka Burkina Faso oo lagu dilay weerar argagixiso oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi iyo iskoolada gobolka Kashmir oo dib loo furay. markale duhur wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo talaada ah 20ka bisha 8 Agoosto sanada 2019 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo ee raadiyaha Simba. Kismaayo khudbad jeedinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa goordhow waxay ku soo ilaatay magaalada Kismaayo. wararka u dambeeyay waxaa noo faahfaahinaya Cawil Ciise. musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta waxaa khudbad ay u jeediyeen xildhibaanada ay codka ka doonayaan ee dowlad goboleedka Jubbaland kuwaas oo fadhigooda maanta u soo xaadiray in ay dhageystaan musharaxiintan oo ka mid yahay madaxweynaha talada haya Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. musharaxiinta ayaa waxa ay soo bandhigeen qorshahooda siyaasadeed ee 4 sano ee soo socota ay ku wajahayaan hogaaminta Jubbaland waxaana ka mid ahaa haweeney ka tirsan musharaxiinta taas oo noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne u tartanta maamul goboleed isla markaana dowlad goboleedka Jubbaland doonaysa inay hoggaanka u qabato. Cana Maxamed Daahir oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo maantay lagu bilaabay khudbad jeedinta ayaa waxa ay ku dhawaaqday dhowr arrimood oo baarlamaanka soo jiitay qaarkoodna maalmihii dambaba ay ka muuqanayeen deegaanada Jubbaland. waa midda koowaad in ay xiriir la yeelanayso dawladaha Kenya iyo Ethiopia oo maalmihii dambaba faragelin ku hayay doorashada Jubbaland isla markaana tartan culus ugu jira sidii mid uu u maamuli lahaa dekadda magaalada iyo sidoo kale guud ahaanba in uu hoggaanka u qabto musharaxyada taageersan labadaas dawladood mid ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland. waxa ay sheegtay sidoo kale in wax badan ay ka bedelayso dhinaca garsoorka, horumarinta adeegyada bulshada iyo dhinacyo kale oo xilligan dhaliila ay ka jiraan. waxay ku dheeraatay in iyadu ay wajihi doonto siyaasadda isla markaana iyada oo maamo ah ay noqon doonto madaxweynaha Jubbaland oo si cadaalad ah wax ku maamula. waxa ay sheegtay in ay musharaxiinta kale ay ka mudan tahay in loo dhiibo hoggaanka Jubbaland. qodobka sagaalaad waa dhaqaalaha iyo dakhliga. si ay u suurta gasho siyaasadeeda 4 sano dowladdeedu waxay muhiimadda saaraysaa kordhin dakhliga madaynta dhaqaalaha Jubbaland. shaqada ugu weyn ee dowladdeeda ay qaban doonto waxaa ka mid ah madaynta canshuuraha bariga iyo badda, gundhig siyaasadeed maalgashi leh oo lagu abuurayo ganacsiga yaryar ee loo yaqaan small business, wax soo saar, dhiirigelin iyo dhoofinta sida kalluunka, xoolaha iyo waxyaalaha aan leenahay oo dhan. shaqo abuur qaabilaya dhinac walba
loo sameeyo dhalinyarada beesha caalamka waa qodobka tobnaad dowladda Jubbaland ee aan hormuudka u qaban doono madaxweynaha ugu noqon doono waxay xoogga saari doontaa inay la dhaqanto siyaasad furan kula dhaqanto beesha caalamkana waxaa naga dhexeeya danaha labada dowladood sidaa daraaddeed dowladda Kenya iyo Ethiopia oo xuduud la leenahay waxaan ula shaqayn doonaa si dhow oo danaha Jubbaland ku jirta iyo danaha dalka Soomaaliyeed qodobka ugu dambeeya soo celinta jiilalkii lumay dowladda aan hormuudka u qaban doono waxay xoogga saari doontaa soo celinta jiilalkii ku lumay burburkii dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay. musharaxiinta khudbadaha jeediyey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha talada haya Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo soo hadal qaaday siyaasadiisa iyo sidoo kale howl gudashadiisa 4 sano ee soo socota waxa uu sheegay in 18 bilood gudahood uu ku soo afjarayo dhaqdhaqaaqa shabaab ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolada dowlad goboleedka Jubbaland isaga oo qaban doona magaalada xarunta ah Jubbaland ee Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe waxa uu sidoo kale sheegay in wax badan uu ka bedeli doono dhinacyada garsoorka horumarinta adeegyada bulshada dhismaha ciidamada oo uu sheegay inuu dhisi doono ciidan Jubbaland iyo sidoo kale guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba ay ku naaloodaan inta uu xilka hayo ciidamadaas oo uu sheegay in ay iskugu jiri doonaan 4 ciidan ee qalabka sida isla markaana la howlgali doona ciidamada kale ee qaranka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in sidoo kale maamulkiisa uu diiradda saarayo sidii loo baahin lahaa maamulka heer gobol heer degmo iyo sidoo kale la heer deegaan uu gaarsiin doono inta uu xilka hayo iyada oo wax walba hiba sinaan iyo cadaalad lagu maamulayo sida uu yiri waxaan qorsheynaynaa ka fakaraynaa inaan isku tashi annaga aan isku tashanayno waan isku xisaabtanayno oo dhismaha ciidanka intaan dhamaystiro aan isku dayno deegaanada dhaqan insha allahu inaan annagu xoreyno muddo 18 bilood waxaan ka dhiganay aragtida meesha aan ku gaari karayno hadafkaas oo sababtu keenayso inaan annagu siyaalo badan oo hadda u daraaseynay annaga cid kale ku xisaabtanayno ciddii marka wax nala wadaagaysa hal arkeen inaan ka shaqeyno xoreynta deegaanada dhaqan oo xasiida ugu horeyso iyo isu socodka inta xorta ah oo iyada in badan oo ka mid hadda waa isu socda la socotaan taa ku dari doonaa dhisid ciidan xoog badan oo reer Jubbaland ay ku seexdaan insha allahu Soomaalida wax badan u tari doona qodobka labaad waa daadejinta maamulka iyo dowladwanaagga madaxweyne Axmed Madoobe oo tartan adag uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka oo la sheegay in iyadoo adeegsanaysa dowlado kale oo dariska ka mid ah in ay faragelin ku hayso doorashada Jubbaland ayaa waxa uu soo hadal qaaday xiriirka oo la yeelanaya dowladda federaalka iyo siyaasadda guud ee qaranka Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba uu kala shaqeyn doono sidii doorasho qof iyo cod ay uga qabsoomi lahayd dalka wixii loo gaaro sanadka 2020 waxa uu sheegay in maamulkiisu uu noqon doono mid wax badan ka bedelay xilligan xaaladdu sida ay tahay haddii mar kale loo dhiibo hoggaanka isla markaana la doorto waxaan kala shaqeyno dowladaha Soomaaliya federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada sida Soomaaliya ay ku gaari lahayd inay gacanteeda isku taagto daawada sheega ay ka kaaftoonto amnigeeda oo harato hoggaan fiican iyo maamul fiican iyo tallaabo hore u qaada u sameyn lahayd waxaa muhiim noo ah oo shacabka Soomaaliyeed muhiim ورجعنا كاشة غامة إلا يراني عوايد عن أي دولة عاد إلا يراني بعدين يدريك تدك واسع إلا يراني كراشة تدك وعلى شيء تسمى سكواريستا دان سكوارينتا هرمانتا بالشارع كراشة غامة وراشة بالشارع
iyo sugitaanka iyo xaqiijinta xuduudaha dalku uu leeyahay iyo dadka baahidooda si loo dabooli lahaa. waxaan rabaa inaan muddo badan hadda kusoo jirnay xaalad adag oo aad usoo jiitanaysay baarlamaankana aan usoo gudbinayo inaan doonayo muddadan 4 sano ah inaan dhammaystiro oo aan diyaariyo weliba maamulkii qaban lahaa dadkii loo diyaarin lahaa sidii maamul wanaag looga sii socon lahaa. waayo annagu shalay markaan imanaynay waxaan ka bilownay meel udara hoolkan aan ku sheegnaa ugu dambeeyo wax ka yar 2 bilood baa lagu diyaariyey. doorashada dowlad goboleedka Jubbaland oo aad isha loogu hayo ayaa waxaa la filayaa in ay qabsoonto marka la gaaro 22 bishan oo ku beegan khamiista soo socota ee asbuucan. waxaana la tilmaamayaa in doorashada Jubbaland faragelin culus ay ku hayaan dowladaha Soomaaliya la deriska ee Kenya iyo Itoobiya, kuwaas oo la tilmaamay in mid walba hibo uu ka fiirsanayo danihiisa gaarka ah iyo sidii hogaamiye asaga daacad u ah ugu guuleysan lahaa hogaanka dowlad goboleedka Jubbaland. sidoo kale dowladda federaalka ayaa lagu eedeynayaa in ay burburisay dastuurka isla markaana ay ku tumatay qodobka 120aad ee qeexaya habka loo dhisayo hay'adaha dastuuriga ah ee sharci dejinta iyo sidoo kale fulinta ee dowlad goboleedyada oo Jubbaland ay ugu horeyso, kuwaas oo la tilmaamay in iyada oo adeegsanaysa dowladaha shisheeye ee Soomaaliya deriska la ah in ay faragelin ku hayso arrimaha Jubbaland iyo doorashada socota. cawil ciise aad baad u mahadsan tahay. laba ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland oo maanta waxay ku dhawaaqeen inay ka tanaasuleen u tartamida xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland. warkan waxaa faahfaahinaysa ayaa Nuur Xirsi. shir jiraayada magaalada Kismaayo ay ku qabteen laba ka mid ah musharaxiintii u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland ayay ku shaaciyeen inay ka tanaasuleen u tartamida xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland. Axmed Cabdi oo ka mid ahaa musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa tanaasulay isla markaana go'aansaday inuu ka haro tartankii ugu jiray madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland. waxa uu sheegay in uu tanaasulay sababo isaga u gaar ah iyo waliba danta shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi Jubbaland. anigoo ah Axmed Cabdi ahna musharax madaxweyne Jubbaland waxaan maanta u imid TV-ga aniga oo daneynaya arrimaha aniga ii gaar ah aniga iyo la taliyaashayda iyo bulshada aniga igu xiran ay oo looleysay. waxaan go'aansanay oo isla qaadanay talo ah inaan ka tanaasulo doorashadii aanan sii wadinin sababtoo ah danta ka jirta Jubbaland inaan qaybtayda ka qaato. taas waa danta ka jirta in waqtigu yahay waqti ciriiriya, culays badan oo jiro, orod badan oo jiro, sidaas darteed aan u tanaasulo musharaxiinta kale. sidaas darteed taa aniga ayay iga timid, anigoo raalligayga ah, aniga iyo asxaabtaydii ummadda igu xeeran oo dhan go-aanka annaga ayaa qaadanay. inta ila qaadatay oo talada ila timid oo igula talisayna waa uga mahad celinayaa. iyo dhammaan reer Jubbaland isku daygaygii ama hawshayda aan rabay inaan sii wato meesha ayaan ku soo jaray, waana danta ummadda reer Jubbaland ayaan u arkay, anigii asxaabteeda waan wada aragna. sidaas darteed waa mahadsantihiin go-aankiina aad ila timaadeen, anna waa idinla qaatay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhinaca kale Cabdi Xiis oo isna ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu sheegay inuu yahay aqoon-yahan u qalma xilkaasi, ha yeeshee uu markaasi ka tanaasulay kadib markii uu fiiriyay xaaladaha ka jira Jubbaland iyo waliba dalab uga yimid beeshu isagu ka dhashay. waxa uu sheegay in uu arkay in danta gaarka ah laga hormariyo danta Jubbaland, isagoo shacabka u rajeeyay amni barwaaqo isla markaana uu alle ka baryay in shacabka Jubbaland uu ka saaro duruufaha ku xeeran doorashada maamulkaasi Jubbaland. waxaan in muddo soo wadnay olole ay ku baxday maskax, tabar iyo dhaqaale badan, anigoo u mahadcelin ballaarinna u jeedinaya saaxiibadii igu garab istaagay, kuwii ila shaqeeyay, kuwii isoo hambaliyeeyay iyo kuwii qalbiga ka jeclaa inuu ololahaygu najaxo. waxaan ku faraxsanahay in inta badan bulshada reer Jubbaland
ay soo dhoweyso musharaxnimadayda ayna ii arkaan qof wax ku soo kordhin kara dalka waxna ka bedeli kara nolosha shacabka reer Jubbaland sababta u weyn ay tahay aqoonta kasakow dal iyo dad jacayl iyo dhowrsanaan la igu yaqaan haddaba anigoo xeerinaya dalabka jifada aan ka dhashay una turaya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbaland waxaan go'aansaday inaan ka haro tartanka madaxtinimada Jubbaland intii muddo ahayd ba ololihiisa ku soo jiray waxaan ogahay inuu yahay go'aan qalafsan balse markaan xeeriyay xaaladaha maanta ku haraysan Jubbaland waxaan u arkay inay muhiim tahay in danta gaarka ah laga hormariyo midda guud ee bulshooyinka Jubbaland waxaan shacabka Jubbaland u rajaynayaa guul mustaqbal wanaagsan horumar barwaaqo iyo amni daa'ima oo joogto ah iyo inuu ka samata bixiyo duruufaha qalafsan ee ku xeeran xilli doorasheedka waxay ahaayeen laba musharax oo ka mid ahaa musharaxiintii uu baratamayay xilka madaxweynaha Jubbaland oo maanta iyana ku dhawaaqay inay ka hareen oo tartamida xilka madaxweynaha Jubbaland wuxuuna ay u dambeeyeen warkii ay faahfaahinaysay ayaa Nuur Xirsi kooxoobeysan ayaa qaybo ka mid ah magaalada tan Muqdisho maanta waxay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dawladda dilkan ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska Sanca ee magaalada Muqdisho waxaana dilka geystay koox la sheegay inay ku hubeysnaayeen baastoolado waxaa la sheegay in askariga qaybaha hore jirka xabad ay kaga fureen isla markaana ay hore u sii qaateen qoray AK-47 ah oo askarigaasi watay goor dambe sida caado iyo dhaqan haydba waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska kuwaas oo sameeyay waxay ugu magac dareen howlgal natiijo la'aan askariga meedka meesha ayaa laga qaaday waxaana hadda la geeyay xarunta dambi baarista booliiska Soomaaliyeed ee CID loo yaqaano dilalka noocan oo kala waxa ay hayeen Muqdisho maalmahan kuwa ku soo badanayay waxaana inta badan dilalkan dhabarka u ruuta dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha Jubbaland ayaa la sheegay inuu bixiyay amar lagu xiray dhammaan wadooyinka soo gala kana baxa garoonka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose Hani Maxamed Cabdi ayaa warkan faahfaahinaysa Cabdinuur Jaamac oo ah korneer ku sugan magaalada Kismaayo oo la hadlay idaacadda Simba ayaa waxa uu eedeyn kulul u jeediyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland haddana qaybta ka ah musharaxiinta Jubbaland isagoona korneerka sheegay in xalay diyaarad laga leeyahay Itoobiya ay damacday in ay ka soo degto garoonka magaalada Kismaayo isla markaana waxa uu sheegay in ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kenyaati ah ay rasaaseeyeen diyaaradda isagoona amarka uu bixiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe sidoo kale korneerka uu sii hadlaya ayaa intaa ku daray in gabi ahaanba garoonka Kismaayo oo musharaxiinta ay ka soo degi lahaayeen uu Axmed Madoobe dhagaxan uu ku jaray isagoona ciidamo Axmed Madoobe taabacsan lagu daadiyo garoonka Kismaayo si aysan cidna aysan u soo galin garoonka cidna aysan uga bixin baa ka soo degaysay airportka diyaaradii waa la xabadeeyay ciidamada Axmed Madoobe caabu ah iyo ciidamada Kenya ayaa xabadeeyay diyaaradaas waa noqotay ciidankii alaabta soo qaadi lahaa oo airportka afkiisa joogayna waxa la daqiiqada kaga bax Kenyaatiga yiri dhinaca kalena waxa ka daba jabiyay ciidamada Axmed Madoobe caabu ah Itoobiya waa iska soo noqdeen airportkii ma dhamaato oo magaalada xagga ka xiga Juba Valley bay xaarteen airport ka dhigteen waxay damcaynayaan dibka iyo waxaas gelin oo ay kala ilaaliyaan ciidamadan Afrikaanka ah iyo Kenyaati u shaqeynayaan ku shaqeynayo airportkii way ka shaqeeyeen xalayto isla xalayto iyo saakaba Axmed Madoobe wuxuu ku soo dalgalay airportkii wuxuu ku soo dalgalay gawaariyaal iska rogayaal dhagax inuu dhigo dhinaca soko magaalada ay ka soo galaan Axmed Madoobe ayaa khudbad jeedinta doorashada Jubbaland waxa uu ka sheegay in 18 bil uu xoreynayo deegaanada al-shabaab ay haystaan isagoona 9 sano uu hoggaanka ka ahaa Jubbaland waa mahadsan tahay Hani waxaad wali dhageysanaysaan warka duhurnimo ee raadiyaha Simba madaxweynaha Jubbaland muddo ku siman 7 sano ayuu ka yahay deegaanada Jubbaland madaxweynaha haddana wuxuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland markana Mudug maamulka gobolka Mudug ayaa shaaca ka qaaday cidda bixinaysa lacagta ku baxaysa dhismaha dekada Hobyo ee gobolka Mudug
Sahre Ibraahim Yuusuf ayaa warkan faahfaahinaysa. gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdishaaq xuseen maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyey arrimo la xiriira dhismaha dekedda magaalada Hobyo. warar dhawaan soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in odayaasha dhaqanka ay ku shiraya magaalada Hobyo ay ururinayaan dhaqaalihii ku bixi lahaa dhismaha dekedda Hobyo. gudoomiyaha wax laga weydiiyay arrimahaasi ayaa ku tilmaamay mid been abuur ah isla markaana sheegay in arrintaasi aysan u yaalin odayaasha dhaqanka balse dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda dalka Qatar ay heshiis ku wada galeen in ay bixiso qarashaadkii ku bixi lahaa dhismaha dekedda Hobyo. dhawaan ayay ahayd markii uu yimid ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Qatar ee Muqdisho waxa ayna ka wada hadleen ka shaqaynta nabadda iyo horumarka dalka Soomaaliya. ما dekedda Hobyo waxaa dhisaysa dowladda Qatar oo heshiiska la gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya inta anagaan ka ognahay intaas weeye wax kaleeto waraha ku tirtirteen hadda ma shaqeynayaan iyo kale waxaa lagu heshiiyey in amniga laga wada shaqeeyo in horumarka iyo deegaanka laga wada shaqeeyo in beesha meeshaas ku tashanaysa oo taladu halkaa u taalaha ay yeelato hoggaan midaysan inay yeelato guddiyo shaqeeya waxyaalaha hadda kor lagu heshiiyey waxyaalahaasa ka mid a natiijada ugu dambeysa iyo go'aamada ugu dambeeya insha allahu tacaala markay soo baxaan la wadaagi doonaa waa su-aal inta badan saakaba la isweydiinayo rajo waxaan ka qabnaa tan inay ka duwan tahay kii horeeto oo haddii la kuranya ay noqon doonto mid rasmi ah oo dekedda Hobyo ay ku dhisanto waayo dowladdii federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaarihii uu saxiixay dowladdii Qatarna ra'iisul wasaare ku-xigeenkii iyadoo ay saxiixeen isla markaas waxaa muuqata rajo ka fiican midii horeeto oo dadku sheegi jireen baasaasa. dhismaha dekedan oo goor hore bilaabatay ayaa haatan u muuqata mid shaqadeeda si wanaagsan u socota waxaana qayb weyn ka qaadanaysa dhismaha dekedaasi dowladda dalka Qatar. weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhurnimo ee raadiyaha Simba. markana akhbaaraadka dibadda. askar u dhalatay dalka Burkina Faso ayaa lagu dilay waqooyiga dalkaasi. in ka badan 10 askari oo u dhashay dalka Burkina Faso ayaa lagu dilay weerar kooxo argagixiso ah ay ku qaadeen ciidamada ku sugnaa waqooyiga dalkaasi. tiro kale oo ka mid ah ciidamada ayaa lagu dhaawacay weerarkan oo dhacay ismaalinnimadii Axad aynu soo dhaafnay sida lagu sheegay wargeys ka soo baxa gudaha dalkaasi. waxaana weerarkan ka dhacay xadka ay wadaagaan dalalka Burkina Faso iyo sidoo kale Mali. weerarkan ayaa waxaa la sheegay in sidoo kale lagu beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga dalka Burkina Faso. weerarkan waxaa loo adeegsaday hub aad u culus waxaana la gubay qaybo ka mid ah xerada iyo qalabkii milatari ee halkaasi yaalay. howlgalka milatariga ee ciidamada Burkina Faso ee weerarkaasi la kulmay waxay sheegeen in ay fashiliyeen miinooyin lagu aasay wadooyinka dhinacooda kuwaas oo ay qarxiyaan ciidamada u qalabeysan habka miinooyinka loo qarxiyo ee dalkaasi Burkina Faso. ugu dambeyntiina iskoola ku yaala gobolka Kashmir ayaa dib loo furay. in ka badan 200 oo iskuul oo ku yaala dalkaasi oo ku yaala gobolka lagu muransan yahay Kashmir ayaa dib loo furay sida uu sheegay safiirka Indiya ee dalka Turkiga. iskooladan ayaa u xirnaa arrimo dhanka ammaanka ah waxaana uu sheegay safiirku in arrintan laga heshiiyey kadib markii uu shir jaraa'id ku qabtay safaaradda dalka Indiya ee ku leedahay Turkiga. Jammu iyo Kashmir waxa ay hayeen labada gobol ay ku muransan yihiin Hindiya iyo Pakistan siiba gobolka Kashmir. arrintan waa laga heshiiyey sababtoo ah siyaasaddu waa ay ka madax bannaan tahay arrimaha waxbarashada ayuu hadalkiisa sii raaciyay safiirka dalka Turkiga u jooga Indiya. boqolaal dad ah oo markaasi ka soo jeeda dhinacyada isdiidan ee gobolka Kashmir ayaa ka faa'iideysanaya dib u furidda iskooladan. guud ahaan dhegeystayaal warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho waa naga inta